talabaad waxa iga oohinaya ma aha nimco xarigeeda ma aha nimco jirkeeda wax lagu samaynayo ma aha gaaladu waxay igu sameeyeen waxaan la ooynaya waa waxay walaalaha islaamku igu sameeyeen especially wadaadada reer Abubakar iyo qabiilkaan ka dhashay labadaas dhaawacyada ii geysteen baa la ooyaya labaduba iyagaa shaabadii ku dhejiyey oo gaar ii dhigay oo terrorist iga dhigay iyagaana garab isiin waaye maanta hoolkan aan ka hadlaayo wax loo bandhigay waa qabiilkayga iyo intii muslim qabiilkaygana intaasaa ka timid intaasaa waxay tartay islaamkii masaajidadana intaasaa waxay taray gabadha walaashay waxay la xidhan tahay 5 qof walbana waxaa la $150,000 bixi hay'adda MLS baa ka bixisay qof walba $90,000 walaashay waxaa lagu soo qoray 60,000 ayadoon loo yar la qabanin iyo iyadoon loo dhaweyn dibka ugu horeeya oo naloo geystay waxaa ka mid ahaa in looyaradii laga reebay in magaceeda iyo sawirkeeda aan hayo cadaymihii lagu sameeyey farriisika the 50th state-ka masaajidada ku yaalloo dhan in lacag loo guray inaan qofkaan idhaho wixisiiba uu idhaho waan bixiyey gabadhaan lacagteeda waan bixiyey gabadhaan lacagteeda waan bixiyey iban ay masaajidada islaamka qaar nagu xanaaqaanay dhahaan mar dambe hana soo hor istaajinina gabadhaan waan bixinay keligeedaan farriis u samaynay San Diego uga samaynay hana soo hormarinina mar dambe wejigeeda lacagtaasina ma garanayna meeshay aaday dadka walaalahayga islaamka hadday meel kasta iga daawanayaan ama iga dhegaysanayaan waxaan u caddaynayaa in dadka la khalday oo lagu yidhaa gabadhaan waan caawinay lacagtii hay'addaan u shubnay 90,000 hay'addaan ugu darnay lacagtii ilaa maalintii la xidhay ilaa maanta aan aruurinayna waan ka bixinay waana siinay lacagtaasina ma jirto waxna la siiyey iyo wax ayna ag martay ma jirto lacagtana 2 qaybood ay ahayd qayb hay'addu iyada urursanaysay iyo qayb hay'adda ka hor la ururiyey masaajidkana waan tagnay aniga aabahay baa tagnay aniga gabdho kale halkaa fadhiyo ee maqlaayaa tagnay wixii horena dhaqaale xumay ku baxeen wax dambana noogama fadhidiin bay dhaheen waana masaajidkii noogu dambeeyey Abubakar Sidiiq Arizona waxaa la yidhi 2 nin ee masaajidka Abubakar ayaa dhaqaalaha Maraykanka oo dhan xukuma ilaa ay labadaas idin dhahaan waa idinsi reerkaas ha la caawiyo farriisan ha loo sameeyo idinma sameynayno waana loo diiday masaajidkii walaashay u dhimanaysay oo u shaqaynaysay ilaahay dartii iyada u shaqaynaysay in warqad yar maalintan ooyay aan ka qustay inaan islaanimo jirin dadku waxay la yaabaan markaan dhaho nimankaas iyo ku walaashay haystaa sembi iyo wayna yihiin waa Cabdiraxmaan Cumar iyo Abufadl waa labadaa nin waxayna soo xukuminna idinma siinayno haddayna dhihin gabadha farriisa masaajidada uga sameeyaan idinkama samaynayno Arizona na laga yidhi Seattle sidoo kale heer waxaa la gaaray meesha haddaan albaabkaa garaaco islaamna iga daba diro iga daba garaacaysay oo ana walaashay bicturekeeda wata bictureka ilmaha Soomaaliya ku gaajaysan la igaaga waday oo la dhahay gabadhaan waa terrorist ilmahana gaajaha haysa oo albaabada laga soo xidhanaya heer waxaan gaaray oo yidhi ninka lacagtan 60,000 way badantay farriisan haddaan kuu sameeyo waa la igu qabsanaya masaajidkiina Soomaalida ugu qoro just magaciisa keliya Masjid Raxmaan ka qaabasiye jeegaas wala ii diiday ma yaray magaciina kuma soo qoranaysa waxaan tegay Seattle Washington
مساجد كان فريسن هلا يسمى مي هايد يا أسوس عد هايد أو سمينا نيكي هايد أو خليل لها خليل ما كحوي نيك كستو يقول كاحرة أو يرام هذه هايد مساجد كان هايد وأفك وحرية هاي وحبل قاعد مسمينا وكسر فون كي وكإيميل كي أدرس كي واحد يصير أنا كوفة صحيح أنا ملعبت ما أنا قولي جسنا بس هايد السنة هايد السنة سوما أنا بقى كيني سابوني كيدا مساجد بقى إيسو صعدة أمين هايد أسا إيسو صعدة وكنا أدرس كي واحد يصير هكو سمايا أنا فصحي عبد النور نيكلو مساجد استيار الإيمان كأوحكور حتى مكوع خليل مي أدوكورا فصح بي قبل أسقط الميقة ونسا ما يقول والله العظيم بين ميدي شيء قبل هكا سيفر يوم مقلع أو وكر بركي إيران أنا أصحاب بحال وحال يقول متقانا قبل هكا أفريدا وحيترو ولا شيء إلا تألتي أبي وذي أنا ما كنت على نجمة قبلها فرح قطعني وعبد الرزاق حاشين إنه وحنا موقرين عنه وحنا قبلها تروريست ويان فرح قطع عاوننا محمد بكريسي متكلوا عني قال لي وكبير كأبوك حاجة نا واحد فرني سبصة سمسان أنا جاي كانوا كلها قبلها الكاسة فريان بينار من خاتيك سفوق يالله وسؤال كرتان إلا مير أنا المريض ما جرت سندياغا كوسا هذي ورير كنا دقيقة رير كنا عندنا مهرج وذات بالله لك قبيل بالله لك قبيلنا وذات بيوحني وذاتنا قال بيوحني واحد اسمه كيد عمان ما جرت رير كنا عندي ما سلامته عندي ما قش عندي ما أمرته